بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت أقول دوادا عشر كاني سدحات مادة إنجليشها waxaa dhexda inoo marayay unit labaad ama cutubka labaad in the examination room. waxaan hore u soo qaadanay qaybtii koowaad iyo tii labaad. qaybtana waa tii saddexaad ee u dambeysay cutubkan. continue waa cashirkii baa inoo sii socda. read akhri the passage qoraalka akhri and answer kadibna ka jawaab the following questions su'aalahan soo socda. marka koowaad cashirkan akhri qoraalkan akhri kadibna su'aalaha soo socda ka jawaab. when goortii the time is up, an announcement is made by the invigilator and all writing ends and every candidate is informed to stop writing. when goortii the time waqtiga is up uu dhammaado, markuu cashirka waqtigii la siiyay la qoondeeyey uu dhammaado, an announcement ogeysiin is made ayaa la samaynayaa. markii waqtiga uu dhammaado ogeysiina la samaynayaa. waxaana samaynaya by the invigilator, muraaqabka samaynaya, muraaqabka ama ilaaliyaha imtixaanka samaynaya. when goortii the time waqtiga is up uu dhammaado, an announcement ogeysiin iyo iclaam ayaa ismeed la samaynaya. waxaana samaynaya by the invigilator, ilaaliyaha imtixaanka. wuxuuna leeyahay all writing qoraalkoo idil endis wuu dhammaaday, wax kastoo la qorayo waqtigiisa wuu dhammaaday. and every candidate, arday kastana is informed waxaa lagu wargelinayaa to stop inuu joojiyo writing qoraalka uu wado. to stop inuu joojiyo writing qoraalka uu wado. the scripts warqadaha or ama exam papers imtixaanka warqadaha imtixaanka are collected waa la soo ururinayaa, counted waa la tirinayaa, and placed back waxaana dib loogu celinayaa in the envelopes bashqadaha. waxaana dib loogu celinayaa in the envelopes bashqadaha and sealed waana la shaabadaynayo afka laga xiraaya. yani markuu imtixaanka waqtigiisa dhammaado oo ila muraaqibkii uu yiraahdo waqtigii uu dhammaaday oo ardaydu ku wargeliyo arday kastan qoraalku uu joojiyo, waxaa ku xigta shaqada ku xigta waxay tahay warqadihii imtixaanaadkii la soo ururiyo collected. marka collectigan ururinta imtixaanka warqadaha imtixaanka waxaa iska leh invigilatorka. countedkan waxaa iska leh supervisorka, leanna ardayga shaqo u taala ma aha. collectiga iyo countedkaba ardayga shaqo u taala ma aha. collectigan waxaa iska leh invigilatorka, muraaqibka iska leh. countedkan waxaa iska leh, tirintan waxaa iska leh supervisorka. oo bimacnaa invigilator kasta ama macallin kastoo ilaaliye ah inta arday la siiyey, tusaale ahaan 40 arday warqadeedii baa la siiyey. fasalkan hoolwankan waxaa fadhiyey 40 arday. 40kan arday fadhisay ayaa warqadii gacanta laga saaraya. markii waqtiga uu dhammaado invigilatorku warqadihiisu soo ururiyo, waxaa laga tirsanayaa 40 arday ma fadhisaa, warqadaheedii manoo keentaa la leeyahay. sidaasaa looga xisaabsaara, ardayga shaqo u taala ma aha. the scripts warqadaha or exam papers ama warqadaha imtixaanka are collected waa la soo ururinayaa, counted waa la tirinayaa, and placed back waxaana dib loogu celinayaa in the envelopes bashqadaha and sealed afkaana laga xiraaya. marka iyada waa la shaabadaynaya, waa la xiraaya. after they have been packed carefully, after they have been packed carefully, kadib markii si taxadar leh oo deganaan ku jirto loo xirxiro imtixaankii, the supervisor kormeeraha guud takis wuxuu qaadayaa the exam imtixaanka. markii si taxadar leh loo xirxiro oo warqad jeexanta iyo bashqad jeexanta iyo wixii dhan laga ilaaliyo, imtixaanka midna lumin laga ilaaliyo, the supervisor kormeeruhu takis wuxuu qaadayaa the exam imtixaanka
to National Examination Board guddiga imtixaanka qaranku uu geynayo yani guddiga imtixaanka si xilhaa uu geynayo they are market waa la saxayaa marka imtixaankii markii la geeyo they are market waa la saxayaa by waxaana saxaya by the specialist examiners khabiir takhasus u leh imtixaanka saxitaankiisa yani maado kasta waxaa saxaya guddi takhasuskiisa uu yahay maadadaas uu kusoo takhasusay ninka guddigaas saxaya they are market waa la saxayaa imtixaanka waxaana saxaya by the specialist examiners khabiiro imtixaanka saxitaankiisa khabiir ku ah and the results natiijaduna are graded heer ayaa laga dhigayaa before being released intaan la sii shaacinin ka hor intaan imtixaankii la shaacinin ka hor heeraa laga dhigaa heerka bimacnaa tusaale ee plus minus a b plus b minus b c plus sidaasoo kale heerkaasa laga dhigaya goormee marka before being released intaan la shaacinin imtixaanka ka hor cashirka halkaasuu ku egyahay waxaa inoogu soo xigi doonaa su'aalaha iyo jawaabahooda isla socda arday kasta oo danaynaya maadada ingiliishka su'aalaheeda iyo jawaabaheedan ayagoo ka shaqaysan waa loo hayaa waa loo soo diri doonaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu